ku-xigeenkii madaxa al-shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi sheekh mukhtaar rabow abu mansuur ayaa ka soo degay gaari noocan xabadaha karin waxaa ilaalinayay ciidamo ka tirsan hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka oo watay gaadiidka dagaalka waxaa ka muuqday daal iyo diif muujinaysa dagaaladii uu galay iyo duurkii uu ku noolaa wakhtiga dheer waxa uu iila muuqday qof ka fiigtaalsanaa ama uu ku jiro dareen uu kaga didsanaa warbaahinta iyo dad kale oo askartu ay ka mid ahaayeen kadib hool loo diyaariyey oo uu yaalay calanka soomaaliya oo cadow u arki jiray abu mansuur ayuu mowqifkiisa ka bixitaanka ururkii uu ka tirsanaa ee al-shabaab uu uga dhawaaqay. waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Boqol meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay tan kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadallo uu dowladda kula jiro beesha caalamka iyo saaxiibada dowladda ayuu dadaaladan uga mahadceliyay waxaan caddaynayaa in uu wada hadallo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqdo insha Allah taala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho sheekh mukhtaar rabow cali cabdi abu mansuur waxa uu noqonayaa hogaamiye afraad ee ka soo goosta al-shabaab waxaa horey ururkaasi uga soo goostay sheekh xasan daahir aways oo aan weli caddaynin mowqifka uu ka taagan yahay al-shabaab isla markaana xabsi guri ah sidoo kale zakariya ismaaciil iyo sheekh maxamed siciid atam ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya kuwaas oo cadeeyay mowqifka ay ka taagan yihiin al-shabaab isla markaana cafis ka codsaday dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida uu afkiisa ka sheegay sheekh mukhtaar rabow abu mansuur hogaamiyahan isa soo dhiibay 5 sano ka hor ayuu bilowday dagaalka u dhaxeeya isaga iyo ururkii hore uga tirsanaa ee al-shabaab Danaasir Maxamed telefishinka on cable magaalada Muqdisho anigoo ah mukhtaar rabow cali abu mansuur kana mid ahaa asaasayaashii ururka al-shabaab oo noqday mas'uulka labaad ee xarakada waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibadnimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf caqiido ku qotoma khilaaf caqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Boqol meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo
ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay kan kale waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxaan cadaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo fahan waxgal noqdo insha Allah tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee la igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha Allah tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarta wabillahi tawfiiq muddo badan kadib waxaa maanta warbaahinta ka soo hor muuqday Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa al-shabaab ka dagaalama Soomaaliya isaga oo dhabarkiisa aanan ka muuqan calankii al-shabaab kadib markii uu isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya Roobow ayaa sheegay in muddo 5 sano ah aanan xiriir wanaagsan kala dhaxeenin al-shabaab taasina ay tahay sababta ugu weyn ee uu dowladda iskugu soo dhiibay Sheekh Mukhtaar ayaa ka muuqan farxadii lagu yaqaanay xilligii uu ahaa al-shabaab waxa uu gacanta ku watay warqad ku qoran hadalka uu la wadaagay warbaahinta iyadoo oo wariyaasha loo diiday in wax su'aalaha ay weydiiyaan anigoo Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur kana mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab soo noqday mas'uulka labaad ee xarakada waxaan u cadaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socdo kow inaan ka baxay ururka xibanimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido ku qotoma khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Boqol meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in la igu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay tan kale waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan waxaan cadaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo fahan waxgal noqdo insha Allah tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee la igu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha Allah tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarta wabillahi tawfiiq Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa hore u soo noqday ku-xigeenkii al-shabaab iyo afhayeenkii xarakada waxaana uu ka mid ahaa xubno ka tirsan al-shabaab oo ay dowladda Mareykanka ay dul dhigtay lacago malaayiin dollar ah isaga oo laga qaaday lacagaha la dul dhigay bishii Juun ee sanadkan
Abu Mansuur ayaa hadda daadiisu waxa ay tahay 57 sano si dhab ah looma ogo sida ay dawladda ka yeelayso Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur. waa markii ugu horeysay uu ku dhawaaqay inuu isaga baxay xarakada al-shabaab Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur tani markii ay soo baxday inuu ka goostay al-shabaab. Maxamed Yaxya Jinow, telefishinka caalamiga ah Muqdisho.